policy in fara badan bay dadku ku dhageysanayaan muxaadaraadkaaga aad bay u dhageysanayaan dad fara badan baa iska jecel inay xogaa taariikh nololeedkaaga sida culumta sharciga u baratay iyo sida culumta diinta u baratay ay ogaadaan marka iyada oo kooban hadaad noo dul marto maxay taariikhdaadu noqonaysaa sheekh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد تاريخ نوليد كيغو waxay u qaybsan tahay Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia intaba dhamaantood midba waqti baan ku noolaa waxna waan ku bartay tacliinta asaasiga ah Soomaaliya ku bartay quraanka kariimka waxaan ku bartay Ethiopia Kenya macaahid sharciyan kaga baxay kadibna waxaan uga gudbay wadanka Sacuudiga magaalada Madiina jaamacada Islaamiyan ka soo qalin jabiyay markay ahayd 1993 wixii inta ka dambeeyay Kenya ku soo noqday magaalada Nairobi halkaasoo ilaa hadda laga soo gaaro taqriiban aan ku noolaa inaan u safar aado mooyaan meeshaasaan u badnaa laakiin waxaa badan safartayda oo dibadahaas Soomaalida qurbaha jirta ama Afrika ama Yurub ama ilaa Canada Australia dhulalkaasoo dhan waan marmaraa laakiin maqarkayga iyo xaruntaydu waa un hadda magaalada Nairobi way jazakallahu sheekh maxamed marka culumta sharciga waxaad Sacuudiga uun baad ku bilowday mise inta culumta asaasiga duruusta asaasiga dhiganaysiin way barbar socdeen inaad kutubta dhigato iyo marka iyo diinta maya Sacuudiga dhamaystirun baa heedo heer jaamacadeed baan u tagay laakiin inta kale culumta asaasiga waxaan ku bartay wadamada saddexdan hadda sheegay saddexda waan ka qaatay oo meelana xalaqaadka masaajida iyo culimadu akhriyaan baan ka dhageystay meelaha qaarkoodna iskuulaan ka galay oo iskuuladan caadiga ah baan galay macallin baan noqday xataa markii macallin iskuul baan noqday markii dambana macad sharciyan ka baxay oo culumtii xalaqaadka macadka sharcigan maray Sacuudiga dhamaystiran buu ahaa laakiin inta kale waxaan ku qaatay saddexda wadan ayaan ku qaatay